xilligan haatan aynu ku guda jirno waa xilli roobaadkii guga daadadka iyo qashinka iswata waxaa ka dhalan kartaa bakteriyo iyo caafimaad darro dadka ku dhow ku dhici karta. Haddaba si uu dhirta iyo garawaaga iyo weliba qashinka dhex yaalla uga cidhibtiro waxaa u tafaxaytay Cabdilaahi Ibraahim Dhagayare oo loo garanog yahay Cabdilaahi Jackson ayaa u tafaxaytay wuxuuna ka dhameeyey qashinkii iyo garawaagii halkaasi isqabsaday ayuu meeshii wuxuu ka soo saaray garoon markaasi bannaan uu ka dhameeyey dhirtii iyo weliba qashinkii halkaasi isku dhex jiray maadaama haatan lagu jiro xilli roobaadkii gugiina uu foodaynu ku soo hayo cirkan uu cusub yahay si ay markaasi uga dhalan caafimaad darro iyo bakteriya dadka ku agdhow kaagdhacda ayuu hawshaasi in muddo ugu jiray waana kan isagoo ka hadlaya arrintaasi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Horta marka ugu horeysa salaanta islaamka ayaan ku bilaabayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muddaan waday hawshatan ama oo aan qaabayshin u waday ama ha noqoto biyo xidho wadooyin aan ka shaqeeyo. Haddaba waxaan muddo imika waday qaabka kan magaalada dhexdeediiba ay quruntay taasoo cidina eegi weyday dalkanina cid ma laha inta ciddii lahayd imanayso hagaaji aan isiri taana markhaati waxa ka noqon doonta ishaa ka noqon doonta xagga macaawinada cid iguma caawiso aniga salaada ku soo kal laha maqribkaana ka baxaa aflagaadooyinka ay dheer ay waxay doonaan ku hadlayaan danka malihin therefore waxaa halkaan aragtay ceelka galshada ceelka ka soo bilaabay waa magaalada feeskii magaalada halkan taaganahay waxay cimid bay ahayd kayn cimida bay ahayd waxa ka sii harsan intaasaa ka sii harsan halka kan meelda kaga beegan iyana waa ka soo gubay garawaa iyo qashin isku dhex jira garawaa iyo qashin waxay awiyaan ama taraal iska dhaafo waxay ninkii waa la warka kodada ka heesaya ya ninkii waa la warka kodada xashiishka ku dhex jira kodada ka heesaya anayba ila yaabihiin qayb badan waanu saragnay waxay yiraahdeen waxbaanu soo hagaajinaynaa laakiin wax allaale waxay soo hagaajiyeen ma hayno laakiin anigu waa u dhimanayaa dalka kan waa hagaajinayaa inta naftu igu jirto waan hagaajinayaa waxaan loo hagaajinayaa waa dhulkaygii dhegtana haddii la gooyo doolkaa hadha waa fayskii magaalada ama wejigii magaalada dadka soo gala waxay odhanayaan war waxane maxay yihiin maxay isaga hagaajin waayeen ama wa celin waayeen dadka taa daraaddeed baan u samaynayaa tan iyo cidina iguma siiso cidina iguma ammaantay anigaaba lay caayaa sidee marka wax lagu talaalayma odhan karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ma jirto cid Cabdilaahi Ibraahim Dhagayare Cabdilaahi Jackson uga gacan qabatay siduu halkaasi u nadiifin lahaa garawaagana uga cidhibtiri lahaa balse wuxuu sheegay in dhowr jeer lagu yiri waxbaan kaala qabanaa balse hadday noqoto shacabka magaalada Ceelbu iyo guddidaba ayna marna ayna wax kala qaban uu kulligii haatan uu dhameeyey. waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag.